ما يرعدين إذا قاسي سماي خاطروا intayna telefoonka aynu galin waxaan ku soo dhaweynay halkan waxa ayna la fadhiya nin odaya madax ah oo ka socda Awdal State oo ah wasiirka waxbarashada ee Awdal State hadaan yar ka yiraahdo inaga iyo reer Awdal waxa inoo dhaxeeyay taariikh dheer shirkan maanta la leeyahay Khaatumo meeshii ugu horeysay ee la isugu yimid waxa loo jiray Gol Khaatumo waxayna ahayd laascaanood dusheeda buurtayna saaran bay ahayd aynu ku samaysanay ururkii loo jiray USP ururkaas oo u dhaxeeyay waqooyiga Soomaaliya oo aan ahayn reerka beelaha dhexe ahayn inagoo markaa ilaa waqtigaa isku policy ahayn ilaa maantana isku policy gamca furan iyo qalbi furan isku soo dhaweynayna islana isku siyaasadna aynu nahay ayaa waxaan ku soo dhaweynayaa walaalkeenayna soo sharfay ee wasiirka waxbarashada Mahdi Muuse ku soo dhaweynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صادق الأمين. سلام كبعدي وحن آذو فرح سنة هي إلا يقصوا عسومو شركة نهار دعاء لابد تاجر أيو شروينها كسعودة طلع خاتمة تو مركب وجوه رئيسة أنا أقول هذا يا مجا عيجا يا مجا دولة أودل ستيت وجوه الرئيس مدحوينها الرشيد وحنو تاجر سنة هي اللي هنا لقرب تاجرنا هي شركة خاتمة تو وحي كصوبها كلي ما دام الله قلت المعمو باش كسو جيدو marka afka laga hadlayo iyo marka gacanta la tilmaamayaba aqoonta ba markaan fiirinay ama dib u raacdo taariikhda waxaan ku tilmaanaa dadka reer Awdal iyo bulshada ka soo jeeda SSC inay mataana yihiin oo sayla waxay ahayd xaruntii ama meeshii ugu horeysay markii gaal cadi uu dhulkeena yimaado laga saxeexay inaanu ku dhiman karin kuna dhalan karin talexna waxay ahayd halkii ugu horeysay ee lagu aasaaso ama laga bilaabo halganka islaamnimada iyo Soomaalida ee isticmaalka dagaalka iskaashigu sidiisa loo xiimaada marka ay timaado xumaan marka xumaan la diidayo isticmaalkii haddii uu xornimayna siiyay waxa bilowday sheeko kale ayaa haddana bilaabay oo ah tamaanta taagan oo aan ka duwanayn taasina waxay keentay inay timaado sheekadii uu inakii ugu horreeyay ku dhiftay ahayd isku tagii Soomaalida oo la tagay dhulka loo yaqaano Laascaanood markaa halkaasna ay ku dhalatay midnimadii Soomaalidu maanta waxa uu egtay markaa inaynu joogno bishii June ee 1960 markii ummadda Soomaaliyeed ay waqooyigu u geeyeen xornimadii Soomaaliya ee mideynta Soomaalida marka shirka Khaatumo wuxuu aniga shakhsiyan ila muuqdaa inuu yahay kii mar labaad keenayay gogashana u fidinayay inay timaado midnimo Soomaaliyeed oo gacan kaliya loo hadalkayga waxaan u dhigan doonaa insha Allah xafladda weyn ee Khaatumo marka la dhameeyo waxaan salahay shirka Khaatumo ha guuleysto SSC ha guuleysto
أول الستيت هنوراته Soomaaliduna hamidoodu hal baan idinka iloobay salaam baan waxaan idinka sidaa nin qaali ku ah SSC waa darwiishkii koowaad ee taageera SSC oo ah wasiiru dawlaha arrimaha dibadda ee dawladda ku meel gaarka Xaamid Maashay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baad u mahadsantahay jaal wasiir salaantaada qaaliga ah waanu ka guddoonay lagu samayn doono halka fadhigaas waxaanu halkan ku soo dhaweyn doonaa annagoo horgijaar ka qaadi doonin annagoo isku soo dhaweynayna khaatibatu